waxaan ahayn inaan sii dhiirano iyo inaan commitmentigeenu sii xoogaysto ma ogiye wax kale oo muxuu ahay weerarada shabaab ay nagu keenaysaa ma jirto nimankaani waa niman sii dhimbanayo yaanan firiqdooda yaanan waxba macno badan yaanan idiin samaynin way dhimanayaan waanan ka adkaanaynaa waanan ka adagnahay dalkana waa ka xoraynaynaa haddii alla yidhahdo shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa inuu intaas dhiiradaas uu qaato dhiiranaantaas uu nala qaato nimankanna aan dagaalka madambaysa ah ku socday aan wixin abaabulka dawladda iyo maxaan ku idhahdaa shacabku meel fiican u marayaa mar dhowna dalka meel hal mitir oo shabaab ka taliyo dalka in la waayo hadafkeena weli inay bamba jidka dhigaan iyo baabuur iyo wiil yar ay soo khaldeen inay soo diraan iyo way sii wadi doonaan baryahan laakiin wax macnaha ay leedahay malaha aakhirka gadaalay ka soo dhammaatay waan ognahay marka wax sii soconaya ma aha maanta waxa ay dadka ku sabayaan waan noolnahay waa jirnaa shabaab weli waa jiraa inay dadka tusaanay rabaan annagu ma jirtiin aan leenahay waad dhimateen waxa ay dadka tusayaan waa sicid dhintay caanihiisa sac dhintay caanihiisa amay gadaal ka soo badanayaan shabaab maanta waa sidaa haddii caqiide ay dadka ku qaldayeen iyo haddii ay baawar ku qaldayeen iyo haddii dhaqaale ku qaldayeenba waa sicid dhintay shalay caanihiisa waxa ay hayaan sidii aan ula dagaalami lahayn qolooyinkan horarka ah oo aanan u naxayn ummadda Soomaaliyeed oo aan dagaal ku haynin kaliya dawladda iyo shakhsiyaadka ee u soo banbaxay inay laayaan shacabka Soomaaliyeed inaan sidii aan uga hortagi lahayn aan ula dagaalami lahayn qorshaheeda inaan galno xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan laanahay waana inaan keenno qorshihii aan uga adkaan lahayn tan ugu muhiimsan oo ah inaysan lahayn inaan la siin caqiido ay ku dhintaan laakiin waa geesiin markay xabadda maqlaan waa wajahayaan meesha xabadda ka socoto laakiin sida ay shabaab caqiido u leeyihiin ay u aaminsan yihiin hadday dhintaan inay janno galayaan annaga uma diyaarsanin umana diyaarin ciidankeenna wadaniyad iyo patriotism umayna diyaarin waxyaabaha ugu horeeya oo runtii caqabada ku ahaa inaan ka guuleysano ama aan ka bixino shabaab dalka taasa koow ka ahayd hadduusan ciidanku uusan caqiido lahayn iyo wuxuu dhinto waxa weeye guushiis waa fogtahay